السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو dhawaada channelkayga qurxinta guryaha TV waa Cabdiraxmaan laacibka reer Beligweed maanta ay tusaya sida loo dayactiro bathroomkan hadduu dhibkan kugu yimaado. Faaraxo maxaa tiri? shirkadda mooqaray ka qayb qaado waa qurxinta guryaha weeyarukan subscribe-ka ku qabta farmada xamaya ya waxa ugu horeeyay aan sameeyay waxa weeyaan prepping-kii ama diyaar gareyntii darbiga oo xoqitaan masaxaad baskabi siliconta ka jaray waxaan ku yiri siliconta markaan sharay sanding baan isticmaalay sanding paper brush baan isticmaalay si hadda dhasku gabiyo maraan isticmaalay haddana waxaan oo dhan kadib waxaan isticmaalay PVA glue oo aan darbiga iyo marmarka soo qabanaysa dhaskana ka biinaysa 3 jeer oo biyo iyo hal meel oo iyada inta saasa la soo qasay waxa la yiraahdaa diluted kadibna darbigan wada mariyay kadibna waxaan buuxbuuxiyay darbiga intii godadka ahayd waxaan kadib sameeyay layout-kii marmarkuu dhigmayay maadaama customer-ku soo iibiyay size ka duwan size-kii hore oo ka weyn oo markii hore ahaa linear layout waxaan ka dhigay brick bond oo ka fiicankii hore ka qurux badan kadibna waxaan mariyay darbiga xabagtii ama adhesive-kii oo aan spread gareeyay anigoo isticmaalaya qalabkii loogu talagalay kadibna waxaan dhigay marmarkii anigoo isticmaalaya spaces-ka dhexda loogu talagalay waxaan jaray marmarkay wixii loo baahnaa in la jaro si aan first 2 rows ka marka hore ugu bilaabo dawadayaal kadibna waxaan sii watay first 2 rows ama labada row ee ugu horeeya si ay shaqada kale ku dhibiraato goordhow oo aan u sii wato anigoon ka warwarsanayn inay dhacdhacaan ama leecleecaan saad aragtaanba labadan layout kala qurux badan ka hoose waa linear kan sameeyana waa brick bond saad aragtaanba xabagta aan darbiga marinayo waxaan marinayaa in badan ilaa dhowr row waayo waxaan anigu qof degdeg badan aad u degdeg badan laakiin waxaan kula talin lahaa dad sida marmar samee ama aad tahay qof marmar ka shaqeeyaba haddii aanad fast ahayn inaad laba row un xabagta mariso waayo degdeg bay qalashaa waan iska sii watay shaqadeedii aan mar walba eegay inuu darbigaygu siman yahay ifka ugu ilbaxsanaane dawadayaal hadda layout-kii waan dhameeyay waan dhigay kabigoodiba laying-kii oo dhan waan dhameeyay markaa imika waxay harsan grouting-kii middle-ka galiyay dhexda saad aragtaanba iyo inaan ka saaro spaces-ka oo aan clean gareeyo tiles-ka dushooda taawasho wacan waxaan isticmaalayaa pre-mixed grout waa adiga arkadee grout-ka waxaan sameynayaa waan ku push karnay insha Allah fiidiyoyo kale ayaan ku tusi doonaa oo iyagu lesson purposes ah amaba teaching purposes ah inaan idinku tuso sida loo sameeyo step by step waxaan oo dhan haddii aad doonayso laakiin aad hadda barato sida painting-ka tiling-ka flooring-ka carpentry waxyaabahaas oo dhan channelkayga kale English-ka ku hadla the ultimate Somali handyman YouTube intaad ku qorto follow gare ka markaa insha Allah ka daawo kani waa more of a renovations ama dayactir dib u habeyn fiidiyoyada badan aan soo geliyaa dawadayaal markaan dhameeyay grouting-kii waxaan isticmaalay grout finisher oo ah tool ka yar oo loogu talagalay laynanka inuu ka dhigo perfect siman kadibna waxaan isticmaalay sponge anigoo clean gareynaya oo circular motion oo u wada insha Allah video kale aan ku bari doona waxaan deetana waxa weeyaan kadib waxaan ku dhameeyay oo shaqada aan ku soo khatimay silicone dhinacyada loogu talagalay in lagu dhameeyo oo flexible glue ah ama xabag flexible ah oo loogu talagalay labadii meeshii kasta ee laba shay oo kala duwan ba ay ku kulmaan waayo midkood baa dhaqaaqi kara marka lama isticmaali karo wax kale daawadayaal shaqadii wataas way dhamaato waad aragtaan waxa idin la socodsiinay anigoo Cabdiraxmaan laacibka reer Beligweedle number 9 ka ugu ciyaara xulka gobolka Hawd dhinaca guryaha tayactirkooda marka insha Allah extension-kaas baa loo baahnaa waana nagu sii qurux badnaysay sidii ka hoose ahaa thank you dawadayaal haddaa shaqo u baahan tihiin in la idin dayactiro gurigiina ama business-ka meesha shaqadiina ama meelo kale waxay la soo xidhiidhaan bartayda Facebook-ka oo ah qurxinta guryaha jazakallahu khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shirkadda mooqaray ka qayb qaado waa qurxinta guryaha weeyarukan subscribe-ka ku qabta farmada xamaya ya